دكتور سعدنا آدم إسماعيل oo ah ergeyga gaarka ah wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa safarkeedii ugu horeysay ku timi wadamada Scandinavian-ka gaar ahaan dalka Norway waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay xafiiska maayirka caasimadda Oslo kulankaas oo saacada qaatay oo dhex maray maayirada magaalada Oslo Mariana Borger iyo ergeyga gaarka ah wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya Dr. Sacadna Aadan Ismaaciil kulankaasi oo ahaa isxog waraysi labada dhinac ay isweydaarsanayeen shirkaasi markuu soo dhamaaday waxaan wax ka weydiinay Dr. Sacadna Aadan Ismaaciil si ay nooga xog waranto kulankoodii wuxuu ku saabsanaa waxaana hadaladeedii ka mid ahaa Thank you very much. Good morning. It's an honor for me to meet you. Welcome. Thank you. So please come in. Horta kulan aad u qiimo badan buu ahaa gabadhan maanta mayorka ka ah caasimadda Norway waa qoftii labaad ee dumar ah ee mayor ka noqotay caasimadan kunkii sanadood ee soo jiray waa qof aad iyo aad loo jecel yahay shaqo badan qabata waxaanu dabcan ka wada hadalay danta ummadaha degan dadkan magaaladan haday yihiin dadkii Somaliland ama meelo kaleba caafimaadkooda horumarkooda iyo sidii loo hirgelin lahaa wacyigelinta ku saabsan la dagaalanka caadooyinka xunxun ee dhibaato u geysta jirkooda caafimaadkooda iyo mustaqbalka ubadka ay dhali doonaan waxa kale oo aan ka wada hadalay wadankayga Somaliland anuga xog waranay wuxuu yahay halkuu ku yaalo si nabadgelyo u yahay si uu yahay wadankii ugu horeeyay ee Soomaali degan tahay ee xornimada qaata waxaan aad iyo aad ugu farxay in ay ka mid tahay gudida ama baan golaha deegaanka ah inay ka mid tahay gabadh u dhalatay Somaliland oo aad iyo aad looga jecel yahay qiimo weyn iyo magac weyn u soo jiiday haweenka iyo dadka Somaliland iyo dadka u dhashay Soomaali iyo dalalka qaaradda Afrika aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa xildhibaan Faadumo xiriirkan iyo hawsha weyn iyo sumcadda weyn ee wanaagsan ay ummadeeda u soo jiiday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاس أو جوتشوغها وكيل كتيف قرنكا محمد سامع عليف يحلبان فاضمو علي مدر أو ينا كتير سنقولها ديجان كأي عاصمة أوسلو أو أن وحكوي دينا كلن كاس وهذا الذي كم لها. والله شير عدو قيمة بدن بوها ستوسا عندنا لو قابلي كلها ديجان كأوسلمانتا ما يركب قابل شيء سي أوفيشلا si wanaagsan bay uga wada hadleen arimaha maxay hayto caafimaadka dadka diaspora ee wadanka ku nool iyo kuwa Somalilandba iyo kuwa Soomaaliyeedba marka kulan aad u fiican buu ahaa waxaan dareemayay in si heer sare ah uu dhacay kulankaas Maxamed Saamacdiif TV qaranka Oslo Norway